والله العظيم أنت يعني وقلنا حي هذا الذي قاركم موت قف موت وموت والله سبحانه وتعالى أبورت ووفصدي إن أضرت عاد للي عاد ولا صور الفلسطين مدميرية هم قرح بنا kusoo dhawow xaqsoor TV iyo waliba barta aynu ku leenahay baraha bulshada ee Facebook arrimaha qaarsoon waxaan ku leenahay nagu soo bir waxaan ku soo gudbinaynaa muuqaalo yaab badan muuqaalo argagax badan oo dad badan oo Soomaaliyeed ay wali u qaadan la yihiin fanaanada caan ah oo afka furtay markii ay u dhamaatay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan oo iska soo duubtay muuqaal ay aad u murugaysan tahay oo ay kaga hadlayso gabadh lagu magacaabo Firdawsa Cigo oo xagga dalka Ingiriiska ku geeriyootay haddaba sababta ay ugu hiirinaysaa ee waliba dad badan oo caan ah ay maanta isu garab taageen maxay tahay sababta ay Hodan Cabdiraxmaan muuqaalka degdega ah ugu baahisay baraha bulshada markii salaada ciida laga soo baxay halkan baynu ku soo bandhigaynaa oo aan dil wadaagaynaa muuqaal ay aad uga hadlayso waliba meelo badan taabanaya oo ay sheegayso dadka ay baraha bulshada ku soo aragtay inay ku aflagaadeynayaan marxuumada geeriyootay qof weyn tahay markaa la kaasho dadka kaaga aqoonta badan waxaad rabtaa inaad ka hadasho ama aad bulshada la soo dhex istaagto maanta haddii ay erey lagu keeno erey lagu yidhaahdo saasaa jira inta aanad horta aanad eegin oonad iska soo odhanin marka hore iska eeg oo iska soo shaandhay oo iska soo ogow dadka kaaga aqoonta badan la weydii warayso waxaad ka hadlaysaa inuu wax bini aadanka loola hor imanka ay tahay wallahi alcadiim aad maanta aan yani uga naxay hadallada qaarkood maxaa yeelay أول أرساقد ودميلها حن هبين نجا شيء ميلا أدو سحن نجا ميجي لشرين موت قف موت وموت والله سبحانه وتعالى أبورت ووفصدي إن أضرت عاد للي عاد ولا صور الفلسطين مدميرية هم قرح بنا بيريا قف كورت مركو رأي قونت وذا سوقو قونت وذا لهو قف كينولا إسقى سكا قبرية إسقى جوابية إسقى وحي أتراه دورانية لكن قف موتة والله سبحانه وتعالى أفسدي دون بها هذا قفكو دون بها هذا يا أنا جو أبو قفك دل مركا قفك سوكا هذي هذانا قفكو دون بها هذا قفكو هدي وكاهو سيو والله قحشولا كسبه وقف أن أودنا أن كل سو هذا كريم سكا علن كريم إريق دورنا ساعة سكا الدفاع كريم سبحان الله ورميتدي يعني نقلنا رساقدو يعني ميتدي نقلن انت سانا ذرانية يا ميت قفك ميت كمركو كاهو سيو قفك والالكايا أما أقوى قفك إسلامك هادو دينتو أو إلهي سبحانه وتعالى هو يجي ma dhinta waa ilaahay balse sida ay Hodan Cabdiraxmaan sheegaysay waliba muuqaal kale ku soo bandhigayna halkan daawan doona ay kaga hadlayso waxay sheegaysaa in ay aragtay dad badan oo siyaabo kala duwan uga hadlaya geerida Firdawsa Cigo oo ahayd gabadh dalka Ingiriiska ku geeriyootay oo waliba dadka Soomaaliyeed oo dhan ay yana aad u shiraayeen Hodan Cabdiraxmaan iyo sidaan aragnay waliba Safiya Tusma ayaa iyaduna sidoo kale gabay u soo tirsay baroor diiqa oo ay aad ugu amaanayso meelo badan isna taabanaya Hodan Cabdiraxmaan sidan waxa ay aad ugu careysan tahay oo ay ku soo aragtay baraha bulshada muuqaalka lagu faafiyay ee dadka qaarkood ee baraha bulshada isticmaala ay kaga hadlayaan taasoo ay u adkeysan weyday oo waliba fadhiga ka soo kiciyay Hodan Cabdiraxmaan markan waxay leedahay anigu uma adkeysan karo dadka qaarkood waxay baraha bulshada ku soo baahinayaan iyo sababta ku kaliftay inay sidan u soo hadlaan yaa tahay markaad ka hadlayso yaa tahay who are you to talk about her marka waxaan leeyahay dadka rasaaqada halka xun ka galow ama ay ka gashay ama uu ka galayo ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinaad ka awood daran tahay oo ka falxun tahay baa su'aalaha qaarkood lagu weydiin doonaa dadka jawaabi doonani meeytadu ha kaa ammaan hesho subxaan rabbi alcala bixamdihi bal qof meeyta ka hadlay maxaa hadhay dee what else ayaan sugaynaa ya qofkii caafimaadka qabay iska daa qofkii xanuunsanaa iska daa qof aanan iskaba aan dee kuba jawaabin iska daa meeytadii baa la marayaa subxaana rabbi alcala inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun meeytadii aan arsaaqadii naga gelin halkaa aad bay u foolxun tahay inay meeytada arsaaqadii naga gasho warwanadi salaamaya umadayda Soomaaliyeed ciid mubaarak والله
lama ihi laakiin waxyaabaha qaar waan ka xanaaqaa waxyaabaha qaar waan ka dhidiyaa yaa macsa laba qof sharaf lahayo ilaahay oofsaday waan ka dhidiyaa waxyaabaha qaar subxaan allah qof sharaf leh oo cunsi leh oo karaamo leh yaa ay firdaws ciga ahayd ilaahay naxariista janno walaashaa ka waraabiyo iyadii intii islaame ay dhintay waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay jannatul firdawsa uu hoygooda ka yeelo laakiin aad iyo aad iyo aad baan kugu xishooday in aad qof meyti ah yaa aad qise aan jirin oon joogin haa ma jirtaa mayaana joog waaba meytada qofkiya saad uga hadli meytada subxaan rabbi alcalaa bixamdihi ilaahuna soo hanuunsaada weyne waaxide ilmaadee rayaal هلا يسقط الشوط فردوس بقى إلهي نحرست جناك ورابيو قفكي أحيد ما أنتو إلهي أفصلي بعد كجرانيسا يا ماشي أي كتكتي أما برشة أي كده بحذي بعد كجرانيسا إلهي سبحانه وتعالى كنا ذي ذا كواريو haddaba haddii aynu dadkan midhmidh u kala sheegno waayo dadku sababta ay u soo baahideen ciga fardows ciga maxay ahaayeen horta fardows ciga iyay ahayd fardows ciga waxay ahayd gabadh ku nool dalka ingiriiska oo ka shaqayn jirtay weliba dadka soomaaliyeed aada ugu shaqayn jirtay sida ay hodan cabdiraxmaan sheegayso kolley hodan cabdiraxmaan xigta ayay ahaayeen oo aad ayay isu sheclaayeen haddaba wararka kale aan helayna ayaa sheegaya in sababta ay hodan cabdiraxmaan muuqaalkan u duubtay oo keliya uu ahaa inay ku aragtay baraha bulshada qaarkood dad isticmaala oo gabadhaa intay soo qaadeen muuqaaladeeda baraha bulshada ku baahinaya oo gabadhii geeriyootay adigu sidaa ugu falanqeynaya markaasay hodan cabdiraxmaanna afka furatay oo ay muuqaalkan baraha bulshada soo gelisay haddaba hodan cabdiraxmaan oo ah fanaanad caan ahoo soomaaliyeed oo ay ku xidhan yihiin baraheeda bulshada dhowr milyan oo qof ayaa ay saaka salaadii hore ciidda kula wadaagtay markii ay ciidda ay ka soo baxday sidaana hodan cabdiraxmaan oo ah geesiyad gabadh soomaaliyeed weliba fanaanad caan ahna ayaa ugu baaqday dadka baraha bulshada isticmaala qaarkood inaanay sidan oo kale aanay usoo hadleen oo laga qurux badan yahay haddaba waxaanu ku leenahay nagu soo biiro subscribe saar barta aynu ku leenahay xaqsoor tv adigoo nagu soo biiraya welibana taageeraya si aad nooga hesho muuqaaladii ugu dambeeyey wararkii ugu dambeeyey xaqiiqooyin dhab ah oo ku salaysan oo aan ahayn mala awaal meelaha laga soo maguuriyey oo aan ahayn qaar saliga raad lahayn balse annagu sidaan xaqsoor tv u nahay ayaanu adna kugu nahay daacad waxaanu ku leenahay walaalkayow na dhiirigeliya waxaanu ku leenahay ciid wanaagsan adiga iyo dadkaaga iyo reerkiinuba dhammaantiin farxad iyo bashbash iyo barwaaqo ku damaashaada ayaanu idin leenahay waa warbixintii ugu dambeysay oo si toosa idinka imanaysa barta aynu ku leenahay xaqsoor tv